صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أن شركتون كان لبضة بارلمان مدحويني هوري جمهورية سوماليلاند يا مدحوين حكيانك مدحوين حكيانا دي هوري قولها وزير هذا مناشا بارلمانك مدحda qaranka ee kale iyo marti sharafta badan oo ugu mudan yahay gudoomiyaha shirkadda DP World mudane Suldaan ganacsatada oo maanta maalintoodii ay tahay oo badankoodii ay joogaan oo odayaashii ugu waaweynaana ay joogaan oo maanta xafladan ka soo qayb galeen oo aad iyo aad u soo dhaweynayno waxa kale oo si gaar ah u soo dhaweynaya ganacsatada weyn ee East Africa آمنة حرسي أو ميل فوق نوجا تبي قريب أو آمنة قريبه سلام كدب ما أنت واحد شغنا صحيحي قندراسكي اللي قولي سايي شركة دي بي ويد بلارين تيدي بشارينا واحد الصورة جاي نحرقي مقالة بربرة ومالين تاريخه oo ka tirsan maalmaha ku qoran baaldahaba ee horumarka Soomaaliland geeska Afrika iyo isku xidhka khaliijka iyo geeska Afrika tacabka maalinta dad badan baa leh oo waqtiyaalo kala duwan dalka soo maamulay oo hawlo badan u soo galay inuu dalka horumaro waxa mahad gaar ah madaxweynayaashii u kala dambeeyay dalkan oo inoo fadhiyo Axmed Maxamed Maxamuud Siilaan iyo madaxweynihii hore oo ahaa ninkii bilowga tacabka dekada balaarinteeda bilaabay 1977 ahaa markuu ahaa wasiirka ganacsiga ee dawladda hore Soomaaliya tacab xooglan ka galay intii uu ahaa madaxweynaha Soomaaliland inay hirgasho waxa farxad weyn maanta inuu u fadhiyo Ilaahay ku simay iyadoo uu la saxeeyay qandaraaskii balaarinta waxa kamid ah madaxweynihii isaga ka horreeyay Daahir ka ahayn oo dalka tacab badan ku lahaa deganaansho iyo horumarin si loo soo gaaro in Soomaaliland aamino waxa tacab badan ku lahaa madaxweynihii ka sii horreeyay mudane Maxamed Xaturaan Cigaal Allah u naxariiste oo tacab badan dhismaha dalkan iyo dawladnimada iyo deganaanshiisa ka soo qaatay si loo soo gaaro marxaladda halkan waxa kaloo tacabka wax ku lahaa madaxweynihii ka sii horreeyay Cabdiraxmaan Axmed Cali oo dalka xoreyntiisa Ilaahay ku soo beegay inuu madax ka ahaado iyo barigood dawladnimada Soomaaliland saluuligeeda waxaana yana farxada in madaxweynayaasha la shaqeynayay qaar kamidii ugu yaraan Xasan Ciise Jaamac oo Cabdiraxmaan Tuur madaxweynihii ku xigeenkii la shaqeynayay xaaladda adag ahaa Axmed Yuusuf Yaasiin oo Daahir la shaqeynayay oo kamid ahaa Cabdiraxmaan Cali oo dhulka dhaawacan oo soo gaari kara waaya been inoo dhow jooga iyagoo dhamaantood aad u mahadsanyihiin madaxda hore dalka soo shaqeysay iyo kuwa faraha badan inaan xusi karin oo kale waxa kaloo isur taagaya maanta oo soo dhaweynaya oo guuli noo ah ganacsatada Soomaaliland oo ay hogaaminayo rugti ganacsiga iyo madaxdoodu odayaasheeduna wada joogaan waxaan doonaynaa taariikhdu inay xusayno ganacsatada Soomaaliland inay tahay dalkani inuu dhismo oo uu istaago oo uu adduunyada la xiriiro oo la aamino qaybta ugu weyn ganacsatada Soomaaliland ayaa qaatay tusaale markii dalka la soo galay 1990kii iyada oo jahawre badan dagaal jiro markabkii oo horeeyay waxa ku soo leexiyay badda ka soo leexiyay Allah u naxariistay Ibrahim Abdikaahin Ibrahim Dheere isgaarsiintii oo horeysay iyo xawaaladihii dadka raashinka soo gaarsiinayay gurnada ay soo dirayeen dadkoodu waxa horumar ka ahayd oo ka bilowday Habshiil Maxamed Ciid maanta wuu joogaa bay la tahay inuu ka soo qayb galay way xusid doontaa taariikh qaateen isgaarsiintii oo horeysay kamariyaal badan baa bilaabay STS Sotelco barakaad laakiin waxa ka hana qaaday oo dalka wada gaarsiiyay codkooda inay ismaqlaan gudiyadeedba Telesom iyo Central baa soo daba gashay Hormuud baa soo daba gashay National way badnaayeen laakiin waxa caalamka u siday oo tacab badan gelisay dalka isku xidhay Telesom oo filayay inay madaxeeda fadhido waxa ka daba qaatay oo imika inuu soo gaarsiiyay fiberka Som Cable oo filayay inuu fadhiyo gudoomiyaheedii waxayna marnaba ilaaway shirkadda Daalo oo dalka la soo dabaaltay xaalad adag oo ahayd shirkadda Kustan Somaliland oo dalku intii uu tababaraysan ilaa maalintii bilowga ay halkan ka bilaabeen diyaaradda jasnada ahayd ee Djibouti tagtay ilaa maanta marxalad weyn iyo abaal badan dalka hormuudka ku soo galay waxa jira shirkado fara badan oo aan wada xusi karaynin oo siyaalo badan leh oo ay ka mid yihiin kuwa xoolaha ka baac bishtareeya oo ay ka mid tahay kuwa xoolaha dhoofiyo
intii muddo aba magaceeda dee ugu badnaa xaaji aadan oo kale iyo shirkadihiisu ahaayeen aadan baradho ay ka mid ahaayeen shirkadaha ku mudan inaan magacaabo waa badiyay shirkadaheedu walaalayaal dekedaa la ballaarinayo horumarka dhaqaale ee geeska afrika ka jira adduunka oo maanta dhaqaale ahaan ku tartamaya ciidanka aynu u haysano iyo caqliga arrintaa wax ka qabtay ee muujiyey kartidooda ee ilaahay Soomaaliyeed ku manaystay ganacsatada ka oowa waxaanu soo dhaweynaa ganacsatada la shaqayntooda xaaladaha ganacsi u gobol xaalkiisa dawladdu waxay qabataa waa facilitation waa fududayn dhaqaalaha dalka waxa dhisaya waa ganacsatada meel kasta ay joogaanba iyo dal kasta ay yihiinba kuwa ajnabiga ah waa marti qaadayna kuweena waa dhiiri gelinaynaa oo gacmaha is qabsanayna hadii la yiraahdo waxaan soconaa dalka maanta geeska Afrika iyo adduunka tartan dhaqaalaha ka socda dabaysha nabadeed isdhexgal ganacsi ee geeska ka jirtayna garaacaysa qaybteena oo ka qaadanaynaa si dhowna waynu u fiirsanaynaa qaybteena waa ka qaadanaynaa nabadda ka dhex curatay Eritrea iyo Ethiopia waa soo dhaweynay nabadda geeska Afrika oo dhan nabad ka dhaltay waa soo dhaweynaynaa adduunka oo dhan nabadda waa soo dhaweynaynaa Soomaaliland nabad bay ku dhisantay nabad baana u taagantahay ganacsiga isdhexgalka wax wada qabsigana waa soo dhaweynaynaa diyaar waa u nahay inaynu qaybteeda ka qaadano dhammaan caalamka oo dhan ganacsigiisa berbera maanta hawsha laga qabtay ee DP World aan iska kaashanay iyo dawladda Carbeed ee midowday Imaaraadka waxay noqonaysaa halka aynu ka duulayno berbera waa aynu ka bilaabayno inaynu u noqono albaabka laga galaya Afrikada aan dekadaha lahayn ee faraha badan boqolaal malyan oo Afrika aynu u shaqeynaa baynu doonaynaa shirkadda berbera port waxay ka kooban tahay 3 qaybood oo wadaagay oo isu tagay waa shirkad ganacsi shirkadda ganacsi waxay isugu yimid maalgashiga oo United Arab Emirates oo DP World ah oo ata wax maal gelinaysa iyo dalkii lahaa berbera port ee ilaahay ku abuuray oo dalka iyo facility iyo Ethiopia oo ah customerkii ama ganacsadaha loo adeegayay ee badda u baahnaa saddexdaa dal baa isugu tagay waxaanay sameeyay shirkad ganacsi oo ay wada leeyihiin si ay u wada shaqaystaan oo ay si nabad ah dhammaantoodba horumar u sameeyaan dalalkooda waana ilaahay mahadiyo waan uga mahadnaqaynaa dawladda Imaaraadka Carabta madaxooda Sheekh Khalifa iyo waliil ahdiga Maxamed bin Al Nahyan iyo madaxweynaha ra'iisul wasaaraha oo ah madaxweynaha Dubai iyo shirkadda DP madaxdeeda inay noqdaan dalkii iyo shirkaddii ugu horeysay ee ku soo dhiirrada ee maalkooda galiya Soomaaliland oo la ictiraafsanayn oo cadow badan leh waxaan uga mahadnaqaa inaanay ka baqanin oo dhig jala u siinin markii dawladda Soomaaliya ay tiri lama tagi karo oo yaab leh adduunka meel hore loo marinayo oo horumar sameynaysa oo la yiraahdo lama sameyn karo iyadoo gardarro cad ay tahay waxaan leeyahay Soomaaliya arrinka ay ka hadashay maanta madaxda joogta Soomaaliya waxay kororsadeen cadaawad iyo godob Soomaaliya ka dhaxaysa wax kale oo faa'iido ah may soo kordhin waana taa maanta la saxayo berberi way koraysaa Soomaaliland hore u maraysaa adduunka ay wax la qabsanaysaa idinkana waa idin diyaar cadaawad iyo nacwa hayna Soomaaliya dadda waa isu xignaa isku dadda waynu nahay laakiin waxaan u soo jeedinaa nabad iyo wax la qabsi inaynu noqono laba dal oo xor oo walaal ah sidoo ahayn 60kii inay taasi deeqdaa bardi soo jeedinaa taana intaasaan ka odhanayo waxaan ku soo koobayaa hawl badan baa inoo taala Soomaaliland waxa la inaga rabaa inaynu adduunka soo dhaweyno waxa la inaga rabaa inaynu shaqo naqaano oo xirfadaha baran sidoo baaadno u soo dhaweynayno oo aynu adduunka ugu shaqeynayno oo la inoo soo xidhayo waxa la inaga rabaa layr jaban waxa la inaga rabaa biyo badan waxa la inaga rabaa wadooyin waxa la inaga rabaa dad aqoon leh oo dadka soo dhaweysan kara intaas waa hawsha inaga la inaga rabo waa inaynu dawlad iyo ganacsato iyo culimo iyo dhalinyaro isugu tagnaa sidii aynu hawsha qaybteen uga qadan lahayn